maalintii qofku hooyadii dhashay oo adduunyada u soo baxay bay u bilaabantay mas'uuliyadiisu ma intuu iftiinka joogaba mas'uuliyadiisa qayb baa u wareegtay maalin kastuu sii joogaba mas'uuliyadiisu sii cuslaataa markuu yaraa ay baybiga ahaa maalintaa koob markuu uurka hooyadii ku jiray waxba lagama doonin totally maca cunistiisa maca caabistiisa maca qashin saarkiisa waa madmuun way dul qaadnayd sidaa markuu adduunyada ugu soo baxo mas'uuliyadda koowaad u qaaday oo baahidiisa isagu muujiyo oo markuu gaajoodo ooyo oo markuu dhibaato dareemo qayliyo wuxuu diiday isagu ku ooyo waa mas'uuliyad uu ku soo soconayaa xundurtaa loo kala jaray isaga iyo hooyadiidoo la kala amba bixiyey oo lagu leeyahay isbixi wixii intaa ka dambeeya waa isbixin nin weyn oo 18 jira ayaa wuxuu leeyahay xaggeen nolosha ka bilownaa iyo xaggeen ka bilownaa mushkiladda ugu weynee markaa dhalinyaradii haleeshay waxa weeyaan culayskii mas'uuliyadda markii laga daayay ama mas'uuliyadda ay qaadi waayeen oo inta badan aan islaahdo barbaarinta gurigay qayb ka tahay suuqii waxay soo galeen iyagoo meel wax ka bilaabaan garaba laba meelood baan ka eegaynaa in ka falanqaynaynaa iminka Soomaalidu guud ahaan siday u nool yihiin hablaha ayaabaa taliyaba gurigii hablihii bay u duceeyeen bay ku nafiseen wax badan u qabtay sababtu waa maxay marka guriga dadka la barbaarinay la korinayo hablaha yari ba mas'uuliyad lagu saaraa inay madbaxa gasho cunto kariso mas'uuliyaddii bay la soo weynaataa inankii dabadeed isaga maxaa lagu barbaarinayaa cuno caab oo sharabaadka u maydha halkii sarartiisa u sii gogla sidoo sidaa ugu jiro 20 jir suuqa ku soo gaaraya dabeed wadankii wuxuu haystaa gurigoogii sharabaadka loo meeyay dadka u haysta dhibaato badan buu nolosha kala wajaha qaar badan oo jaamacadaha u baxay shaah bay karsan kari waayeen dhalinyaradii sharabaadkii bay meeran kari waayeen noloshii meel ay kala qaybsadaan male isagoo 30 jir markuu soo baxo walaadada inaan shaqaystaan rabaa xaafaddu isku yar tageen gaari yar baa loo yimi bal waa kaas shaqayso weligiiba mas'uuliyad maanta tan ka horeysa looma dirine gaarigii meel wax kaga qabtuu laayay marba hooyadii ku soo noqonaya wuxuu leeyahay hooyay bal maanta shidaalkii iga bixi waxay dhibaatadu ka timid markaa in yaraantiiba lagu sii daayo mas'uuliyadda meesha labaad aan aad u jeclahay waxa weeye inaan ka eegno caruurta miyiga joogta way ka mas'uuliyad weyn yihiin oo ka caqli badan yihiin kuwa magaalada jooga iskuma dhawaa maalin dhaweyd baa meel miyiga baan tagay dabeed ku yar ayaa wuxuu la soo laba roolala waxay la socdeen ari taqriiban 200 aan ku qiyaasay raaf yarahaas la socdeen ida iyo riyaba leh riyihii waa galab gaaban qayb kamid ah waxay u yaaceen caagad yar halka ka taalo biyo ku jiraan oo tusaalan ka bixinaya seer dhowrkii midha ay cararaybu kii labada roona yaa kii yaraabo la diro wuxuu ku war cararo ordo ariga soo celi anna wanaag taagan oo wareegsanayay waxaan ku maxaa soo celinaysaa wuxuu maanta ay biyo cabino way oomeen oo way haraadeen marka saddexdaas ku cararo laga soo maxaad uga soo celinaysaa saddexda cabaani aqliga reer magaalka waqti anna isaga jirrabay waa si fiican u fahansanay maxaad soo celinaysaa kii yara wuxuu igu yiri saddex maantaani biyo cabinoona kalkii biyahan la siinin oo haddii saddexdan neef lagu daayo inay biyo ku jiraan bay moodayaan oo way qamaamayaan buuli xoolahaasina way iswada dilayaan waxa uu dana in saddexdan la qadiyo laga soo celiyo aqliyadda reer magaalka waxa keenaysa xagee joogta